Ahmed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa maanta kulan kula yeeshay magaalada Nairobi hay'adaha deeq bixiyaasha ee ku sugan magaalada Nairobi kulankooda kadib ayaa Sheekh Aadan Madoobe uga warbixiyay saxaafadda waxyaabaha ay ka wada hadleen shirka anaga maanta ku saabsanaa waa shirkii anu imid waxayna ahaayeen dadka maartay shirka maanta aan la yeelanay donor community maartay countries oo maartay intooda badan iyo hay'adaha hay'adda UNDP Aweba NDI iyo consortium oo ayadana qaabilsan arrimaha dastuur samaynta Soomaaliya marka anaga balansanay si maartay waxyaalo badan oo baarlamaanka baahidiisa ah iyo guud ahaan dalka Soomaaliya dhibaatooyinka jiro aan ugu wada hadalno wixii maartay ayagana la qaban karaan iyo maartay ayagana talo iyo gacan ugu geystaan marka shirka runtii waxa uu ahaa shir aad jawigiis u wanaagsan yahay waana la isku afgartay waxaana rajaynayaa in mid fiican ka soo baxo waxay yiraahdeen sidaad la socotaan mesela midowga Yurub waxay gacan weyn ka geysanayeen oo maartay barnaamijka dhinaca security-ka Norway iyo dawladda Mareykanka iyo kullu waa la mid ayagana maartay inkastoo Mareykanka maanta ma joogi laakiin shalay galabaan la shirnay safaaradoodii Norway waa joogtay Japan-kana waa joogeen dhamaantoodana runtii waxay ballan qaadeen inay Soomaaliya diyaar u yihiin arrimaha security-ka iyo arrimaha dastuur u samaynta Soomaaliya oo runtii muddo badan qaadatay oo waliba arrin adag ah oo xukuumadda haddii muddadii la rabo oo dastuurka uu ogol yahay haday sameyn weydo baarlamaanka su'aalo ka keeni karo in arrimahaas wax laga qabto yaana isku afgaranay waxayna ballan qaadeen in ayaga maaragtay arrintaas xoog saarayaan wixii karaankoodan waa la xareeyay qodobada ugu muhiimsan oo aan ka wada hadalnay ay kamid ahayd in samanaaro loo qabto labaanada si maaragtay aqoon kororsi ugu helaan arrimaha waajibaadkooda dastuuriga ah ku saabsan waxa la ogyahay dalkeeni 20 sano ku dhawaad iyo burbursan yahay dadkan marka hore waxay isugu jireen dad aqoon leh iyo dad aan aqoon lahayn dadkii aqoonta lahaa iska dhaafa Soomaaliya dadkii aqoonta lahaa ayaa hataa mugdi galay si fawdada looga dhax jiray burburkan looga dhax jiray qof kasta waxa laga yaabaa wixii uu bartay hada dadkan maartay wada iloobay oo wixii yaab nolol noo noqday fawdadii ku dhax noolashadeedii yaab aadi noo noqday dadka marka la fiiriyo marka in maartay maskaxdooda dadkii la dhigo in maartay aqoontooda kor loo qaado qof kasta waajibaadka dastuuriga ah asiga uu leeyahay halwaanad inay wartaan shaqaalahana maartay naftarkooda aqoontooda kor loo soo qaado yaani taas waan kala hadalnay waxayna naga balan qaaday in fulinayaan gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda baarlamaanku ay ku shaqeeyaan xilligan iyo kulamada faraha badan ee ay la yeeshaan hay'adaha deeq bixiyaasha iyo waxyaabaha ay soo kordhiyaan kulamadooda kasto baarlamaanka duruuf adag uu ku jiro oo muddo dhow gunana qaadanin oo hataa maartay halwaanada safarkood iyo kuwii dibadii gudaha joogay culays badan u haysto haddana baarlamaanku wuxuu diyaar u yahay in maartay kala fadhigiisa u furto halwaanadana ayagoo og dhibaatada maartay dalka ka jirto ayaa marka hore isu xilqaameen inay ummadda sidaas dhibaatadeeda dhan tahay inay hogaamiyaan oo dalkooda dhibaatada ka saaraan oo ku badbaadiyaan ayaga oo isku talagalayo marka haddana maartay waa la ilaamiyay 5 December hadii alla inno iyo furmi doona kala fadhiga baarlamaanka sidaan hadda uu sheegayo waa jirtaa in waxyaalihii la wada ballan qaaday ama wada fulaynin ama maaragtay kaalmadii Soomaaliya u baahnayd boqolkiiba boqol wada bixinin way jirtaa haddana lama dhihi karo wax lama qabanin sababtoo ah baarlamaanka wuxuu jiraa hadda 5 sano iyo dhowr bilood u jiraa hadda xukuumadeeni mise dawladda Soomaaliya waxa la dhihi karaa intaas soo muddo ah hal sano ma dhama intii baarlamaanka gunadiis iyo shaqaalaha iyo hay'adaha dawladda Soomaaliya masharsiisay ma dhama waxa bixinayay international community da bixinaysay taasina waxa ka abuurma jirtay markii la shiro waxa la isu sheego la is afgarto ay ka imaan jirtay marka shirarka meel dhal ma aha lama dhihi karo waayo intaas lagu gaaray markii la wada hadlay wax la isfahansiiyay ayaa lagu gaari jiray in hataa dib heshiisnadii la qabtay iyo waxyaalahaas oo maartay la nagu caawinayay hadii ugu dambeysay Djibouti ka soo qaad meega dhaqaale ku baxay meega diyaarad dadka lagu daabuleeyay international ka bixiyeen anigu hawlaheena ma ahayn
ma ahan markii ugu horeysay ee Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka uu kulamo la qaatay hay'adaha deeq-bixiyaasha waxaanay kulamadani ku soo beegmayaan iyadoo xildhibaano fara badan ay dibad joog ka yihiin xarunta ay ku shaqeeyaan ee magaalada Muqdisho iyo fadhiyada baarlamaanka